السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن وناكسن مركلة قيب كلا عشر كسابسن سيدا لو استعماله SPSS كا قيبتي هوري وحا aan kusoo aragnay sida daatada loo geliyo sida daatada loo kilingareeyo ayaan kusoo aragnay sida loo sameeyo view yani daatada value-geeda loo sameeyo oo ahayd in halkaas variable view la tago dabeetana questions-ka halka lagu qoro la siiyo mid kasta iyo wixii ay lahayd la siiyo jawaabihi lagu jawaabayay kadibna daatadii halkan laga geliyo intaas waa garanay waa sameynay waxaan maanta geli doonaa hadii la yiraahdo saddex qaybood oo ah sida loo analyze gareeyo descriptive analysis sida loo sameeyo sida loo compute gareeyo variableska oo la isugu daro iyo regression analysis sida loo sameeyo hadii la yiraahdo qaybta koowaad marka aan bilowno daatada markii sidaas kugu diyaar tahay iminka daatadan waa daato ka kooban 330 qof ayay ka kooban tahay ilaa 22 variable weeyaan ilaa 22 question ayaa la weydiiyay dadkaas 330 qof marka way ka wada jawaabeen daatadan marka aad descriptive analysis u samaysid waxaad u baahan tahay inaad tagtid analyze ba tagaysaa descriptive analysis waxa weeyaan marka aad rabtid inaad ogaatid boqolkiiba imisa saastri boqolkiiba imisana saastri saano kale imika waxa noo qoran agree strongly agree disagree strongly disagree you no comment ay su'aalaha caadiga u qabsan yihiin background information kana qaarkood waa genderkii oo kale waa male iyo female waa 1 iyo 2 sidoo kalena age-kii saddex qaybood buu ugu qaybsan yahay marka kuwaas oo kale boqolkiiba imisa raga boqolkiiba imisa dumar marka saas u qiimeynayso sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad samaysid descriptive analysis si aad marka u samaysid descriptive analysis u samaysid waxa tagis doona analysis ba tagi doontaa descriptive ayaa tagaysaa kadibna frequency waa inta jeer qofkaasi uu wax xasiliyo ama inta qof ay tiri oo kale questions kaaga oo dhan halkan ay ku jiraan su'aalihii oo dhan kadibna kulli highlight basaaraysa highlight si aad u saartid control A ayaad leedahay ilaa kulligood su'aalihii oo dhan kadibna calaamadaas aad ku dhufanaysaa oo halkan si aad u geysid halkan shaashadan u geysid variableska aad u geysid halkaas aad geenaysaa halka statisticska ayaad furanaysaa kadibna waxaan u baahanahay inaan helno meanka inaan helno iyo standard deviationska iyadana inaan helno maximumka iyo minimumka inaan helno kadibna continue ayaad leedahay marka kadib okay ayaad leedahay halkan marka ayuu ka soo baxaya table-kii halkan ka soo baxaya descriptive halkan marka waxa ku qoran wuxuu ku siinayaa meankii iyo standard deviationskii iyo waxaas dhan buu halkan ku siinayaa su'aal kasta oo ku jirtay meesha 22 su'aalood halkaas ku qoran yihiin table-lada ka hooseeya marka halkan waxa weeyaan tusaale kale what's your gender 330 qof 28 qof ayaa ahayd rag 5 qof ayaa ahayd dumar boqolkiiba isaga ku sameeyo oo ah 84.8 boqolkiiba waxay ahaayeen rag 15.2 boqolkiiba waxay ahaayeen dumar marka labadaas aad noo khuseeya marka si aad u qaadatid marka waxaad sameynaysaa aad u geysatid dokumentiga caadiga ah waxaad leedahay copy halkaas aad ka sameynaysaa copy baad leedahay kadibna excel ayaa tagi kartaa excel ayaa tagaysaa halkaas aad basta ku leedahay labadan marka uma baahnin kaas uma baahnin valid kaas oo kale uma baahnin iska delete gare labadan oo kale haddana iyagana uma baahnin iska delete gare labadana okay waxaan u baahanaa waa intaas totalkii male-kii female-ka marka si aad u samaysatid isla intan haddana dib u qaado word-ka geeso documentiga word-ka ayaa tabtinaad wax ku dul samaysatid ayaad geysanaysaa halkaas dhigo word-ka kaasa haddii aad marka adigu samaysatay table aad samaysatay ku diyaarsanaan sida table-ka loo samaysto simple waxa weeyaan waxaad tagaysaa insert kadibna table kadibna inta aad rabtid column iyo inta row aad rabtid baad halkaa ka dooranaysaa halkaan waxaad ku qoranaysaa tusaale kale male female okay total halkaana frequency iyo percent then sidana ku wanaagsan aad ugu table-kaaga samaysatid oo aad kaasoo koobiyastay kadibna halkan ku qoratid 28 halkaas halkaana ay 4.4 marka percent inay raacsan u baahnid
calaamada inay raacso u baahneen maxaa yeelay xagga sare ku qoran tahay percentka halkaana 5 okay waana 15.2 okay total kan halkan waa 330 halkaana waa 100 okay 120 okay marka saas folder code samaysan kartaa descriptive ko kaasa sidoo kale inta qof ee tiri inta su'aalihi kale ku saabsanaa variableska caadiga ahaa strongly agreed disagreed ahaa okay there is lack of job description among the staff su'aashaas oo kale waxa la weydiiyay 330 qof 9 qof oo kamid ah waxay yiraahdeen strongly agree 13 kamid ah waxay doorteen agree no comment waxa doortay 3 qof 7 qof waxay doorteen disagree strongly agree na waxa doortay hal qof total code na 3 qof percentage qof kasta inta uu ka ahaa wakaas marka labadaas column ayaa aad inoo khuseeya iyo midkaas marka iyadana sida hadda oo kale aad copy leedahay waad xag kala geysanaysaa intaasi waa descriptive markaas u sameeynay talaabada nagu xigta waxa weeyaan inaan ama isticmaalno regression ama correlation iyo correlation waxa la isticmaalaa marka aad doonaysid inaad eegtid saameynta laba shay isku leeyihiin ama xiriirka laba shay ka dhaxeeya tusaale ahaan oo kale anagu hadda waxaan ka shaqeynaynaa oo research-kan uu ku saabsan yahay waxa weeyaan management functions ku saameynta uu ku leeyahay business performance-ka yani ayaan eegi doonaa marka labadaba waan isbarbar dhigi doonaa correlation iyo regression labadaba waan isbarbar dhigi doonaa si aad marka u sameysid correlation ama regression management functions-ka waxaan u kala jajabinay oo IV-geena ahaa waxaan u jajabinay ilaa 4 qaybood oo kala ah organizing planning controlling iyo directing DV-geena oo business performance ahna waxa aan u qaybinay 2 qaybood oo kala ah customer satisfaction iyo staff satisfaction marka labadaas dhinac ayaan isbarbar dhignaa marka DV-geena waa inaan 1 ka dhigno IV-geena waa inaan 4 ka dhigno marka 4ta IV iyo waan kana isbarbar dhigi doonaa marka si aan u sameeyno marka waa inaan organizing-kina waan ka dhigno planning-ka waan ka dhigno directing-ka waan ka dhigno controlling-ka waan ka dhigno isku darno organizing-ka 4 su'aalood baan ka weydiinay oo questionnaire-kan 4 question buu lahaa organizing-ka marka si aan isugu darno waxaan tageynaa transform kadibna compute variables ayaan tageynaa kadib halkaas waxaad ku qoranaysaa organizing halkan marka organizing tiraadid su'aalihii organizing-ka waxay ka bilaabanayeen halkaas there is no adequate ay ka bilaabanayeen waa dooranaysaa su'aasha kadibna calaamadaas ku dhufanaysaa kadib plus baad leedahay kadib there is limited ayaa dooranaysaa su'aasha labaad waad halkaas ku dhufanaysaa plus baad leedahay su'aasha saddexaad plus baad leedahay plus hadana su'aasha afraad okay inta markaa sameysay ayaad okay leedahay okay marka halkan ayuu noogu sameeyay halkaas waxa ku soo kordhay waxay ku ekedaa wal staff satisfaction ayay ku ekeed halkan organizing wuxuu leeyahay value ka badan kuwan su'aalahan maxaa yeelay waa 4 su'aalood la isku daray qofka koowaad oo kale qofka number 1 oo kale 4 su'aalood jawaabihiisa marka la isku daray dhibco 7 abu haystaa qofka labaadna dhibco 12 ayuu haystaa waa sidaas weeyaan saas oo kale ayaan u sameyn doonaa qaybaha kalena compute variables ayaan tageynaa kadibna si aad value kale u sameysad reset baad leedahay kadibna planning su'aashii kale waxay ka bilaabanaysay 3 4 okay halkaas ay ka bilaabanaysaa planning laba su'aalood baan ka weydiinay okay labada su'aalood ayuu lahaa planning kadibna okay ayaad leedahay kan ayuu mar walba soo saari doonaa marka iska minimize garee kadib transform oo planning baa hadana sameysmay okay kadib transform compute variables reset waxa ku xigay controlling okay waxay ka bilaabanaysaa controlling okay 1 2 3 4 okay okay controlling question kale waa okay ana compute hadana transform compute reset directing kan wuxuu lahaa 4 su'aalood oo ka bilaabanaysa work performance plus staff
objective of okay plus kadibna managers okay plus okay afartaas oo loo yahay okay ayaad leedahay waxaa noo dhiman marka afartii IV waan sameynay oo ahaa organizing planning controlling and directing kadib waxay noo dhiman inaan DV ga sameyno compute variables ayaad leedahay set kadibna DV gana performance halkan space lama bixi karo si aad wax u qortid space ma bixi kartid marka qoraalka hal waxay saano kala business performance weeyaan ma qori karo business performance maxaa yeelay business space performance ma sameyn karo waana performance kaliya qoro kadibna waxaad leedahay customer satisfaction plus staff satisfaction su'aashaas ahayd then okay halka marka waxa noogu samaysan afartaas variable of organizing planning controlling directing iyo performance ayaan barbar dhigi doonaa regression si aan u sameeyno marka waxa tigaysa analyze kadibna regression kadibna linear regression waxa weeyaan marka waa multiple linear regression marka aad haysatid afarta variable ee kala duwan oo aad in ka badan hal variable aad DV ga barbar dhigaysid DV ga marka in ka badan hal variable barbar dhigaysid ayaa linear regression la isticmaalaa marka waxaan sameyn doonaa su'aalahan ma waxa isticmaalayna xagga sare waxa la ku qoran dependent-gana wuxuu ahaa performance click button xagga sare geyn kadibna afartii variable ee independent ka ahaa organizing planning controlling directing ayaan halka ku faanaysaa hadduu saddex ku ahaa saddex halka dooranaysaa kadib waxa sidaa iska ahaato inter halka ku ahaato xagga kale waxba ka bedelin sidaa iska ahaato isticmaal mode kuwa caadi iska ahaato yes r square just taas ku darso okay descriptive waxa uu baahnid okay baan continue leh then okay way halkan marka wuxuu noo soo saaray model summary anovadii iyo coefficients-ki ayuu noo soo saaray marka mid kasta significant-ki iyo saameynta isku leeyahay arkaysa marka waan insha Allah sida loo transfer gareyna waa qayb kale inta markaad maraysid marka regression-ku uu soo baxay hadda sidoo kale correlation inaad samaysid analyze baad leedahay then correlate variate kadibna afartii shantii baa halkaas gelinaysa shanta DV shanta variable ee barbar dhigaysid halkaas afarta DV iyo IV ga then one tail two tail Pearson kaas ayaa inta badan la isticmaalaa okay correlation kana waa marka aad iyo aad baad u mahadsantahay intaas aan kusoo koobay casharkii maanta haddii aad wax su'aal qabtidna insha Allah waad soo weydiin kartaa insha Allah cashar kalena waan soo diri doonaa aad baad u mahadsantahay